habdhaqanka saaka ay soo bandhigeen ciidanka dawladda Burundi ee kamid ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu muujinayaa sida markaasi ciidamada ajaanibta ah ee dalkeena ku sugan kaliya ay nooga macaashaan laakiin aanay u diyaar u ahayn in markaasi waajibaadka ay Soomaaliya u joogan si sax ah u gutaan laakiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo geesiyaal ah ayaa markaas naftooda u beemiyay sidii dalkan loo badbaadi lahaa waxaana markhaati ka ah ficilka saaka ciidanka Burundi ay ka sameeyeen magaalada Balcad oo ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab haddaba ciidamada Burundi ee ku sugan Balcad oo halkaas u jooga in Al-Shabaab ay ka ilaaliyaan maxay tahay tallaabada ay sameeyeen arinta la yaab kale oo ay reer Balcad indhooda ku arkeen maxay tahay soo dhawaada daawadeen muuqaalkan ayaan doonayaa mowduucaas inaan ku falanqeyno sida aad la wada socotaan saaka ciidanka markaasi maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudaha ay magaalada u soo galeen waxaana ay fuliyeen bartilmaameedyo gaar oo iyagu ay doonayeen dabcan markay soo galayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab magaalada Balcad ciidanka midowga Afrika ee ADMIS gaar ahaan kuwa Burundi ayaa ku sugan Balcad wax tallaabo ma aanay qaadan ama ma aanay qaadin Al-Shabaab gudaha ay soo galeen waxa ay si toos u abaareen guriyo iyagu ay soo qorsheysteen in ay gudaha u galaan guriyahaas ay tageen waxaana ay ka afduubteen dad deegaanka ah oo markaasi shakhsiyaad iyagu ay raadinayeen kadibna waxa ay tageen saldhigga magaalada halkaas waxa ay ka fasaxeen inta badan maxaabiistii ku xirnayd kadibna iyaga oo nabad qaba ay magaaladaasi ka laabteen sida muuqatay taasina waxa ay muujinaysaa in wax iska caabina marka laga tago ciidan deegaanka ah iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi iska caabin ama dagaalka horimid in aanay jirin wax tallaabo oo ciidanka Burundi ay qaadeen haddaba dad badan waxay isweydiinayaan maxaa sabab u ah in ciidanka Burundi maadaama ay halkaas u joogaan in ay caawiyaan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya maleeshiyaadka Al-Shabaabna ay ka ilaaliyaan Balcad inay gacanta ku dhigaan maxay tallaabo u qaadi waayeen waxaad la wada socotaan howlgalka cusub ee AUSOM Soomaaliya ee dhawaan markaasi Soomaaliya ka bilaabanaya in gabi ahaanba laga cirib tiray ciidanka dawladda Burundi oo muddo dheer kamid ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dabcan Burundi hadda kaba mid ahan booskeedan waxa lagu bedelay dawladda Masar oo ciidankeedu ay imaan doonaan Soomaaliya sidaas daraadeed ayaa dad badan u fasiranayaan in ciidanka dawladda Burundi aanay saaka dhiigooda u hurin in ay badbaadiyaan dadka guryahooda ay ugu tageen Al-Shabaab iyo in sidaas oo kale ay ugu yaraan xitaa iska caabin sameeyaan iyada oo xirooyinkooda kaliya ay ku sugnaayeen ficilkan ay sameeyeen ciidanka Burundi durbadiiba waxa ka hadlay siyaasiyiinta mucaaradka ah si gaar ah madaxweyne Shariif ayaa soo hadal qaaday waxaana uu markaasi tilmaamay in dawladda federaalka ee Soomaaliya waajib ay tahay in ficilka ay sameeyeen ciidanka dawladda Burundi laga xisaabtamo sidaas oo kalena arintani waxay bidhaaminaysaa bay yiraahdeen siyaasiyiinta mucaaradku howl ciidamada shisheeyaha ee dalka la keenayo waxa ay u imaanayaan kaliya inay tahay in dhaqaale sameeyaan laakiin aanay ahayn inay si sax u gutaan waajibaadka Soomaaliya u imaadeen oo ah in nabadeen ay ka qayb qaataan laakiin markasta waxaan aragnaa in geesiyaasha Soomaaliyeed ay iyagu yihiin kuwa dalkooda iyo dadkooda difaacaya cadawgan ka difaacaya halka mushaar fara badan ay qaataan ciidamada shisheeyaha ah kuweenuna mushaaraad badan aanay qaadan sidaas daraadeedna ay dalkooda diyaar u yihiin markas inay difaacaan haddaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga warsugayaa tallaabada ay qaadi doonto wixii macluumaad ay ku soo kordhana halkan ayaan ku soo gudbin doonaa